dadkeenana waxa waalay waa saaxiib xuno marka runta loogu tago madaxda saaxiib xun baa waalay ama la taliyaha u ahaada ama wasiir nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofku ilaahay khayr la doonay madax jacala lahu bitanatan salih saaxiibo wanaagsan buu sameeyaa la taliya kii kalena saaxiibo xun odayaasha waxa waalay saaxiib xun halkan uu joogaayo masaajidku iskaga wartiyayaayo mid baa dhagta wuxuu saaraya wuxuu leeyahay shirki reer hebel baynu leenahay waa ka kaxeeyay wuxuu dhaxdhigayaa qabyaaladii iyo balwadii iyo boolatiigi waxa laga yaabaa jamac dambe inaa soo haleelinba dumarkii waxa waalay saaxiibad xun hooyadii islaantiiba kala dhex galaysaba odaygii islaantii kala dhex galaysa waxa laga yaabaa inuu soo hoydo iyadoo faraxsanayn intuu ka yimaado iyadoo cadhayso maxaa dhacay dadkuba caynkaa ma yeelaan adiguba caynkan maahi reer hebelba caynkaa ma aha mid baa ka dhex hadlaysa tu saaxiibadeeda baa ka dhex hadlaysa oo saaxiibtinimadiisiiba ka sokaysaba waa musiibo weyn waxa laga yaabaa ciyaalkan in la il daranay saaxiib baa waalay guriga lagu rabaynaya madrasada lagu rabaynaya shaaricun bu saaxiib xumi ka helaya Soomaalida dabadda maqasheen caruurtoodu gaangiska ku biireen ama daroogada iibiyaan mushkilada u weyn waa saaxiib xun marka daraasadeeyeen waraystay waa saaxiib xun ilmaha noo wanaagsan baa guriga ka tagaya mid yar baa helayo gaalaha wuxuu leeyahay kabahaagu way xun yihiin shaarkaagu wuu xun yahay $300 ku arbax saddexdan kale mobile siiso markuu saddexdaa u siiyay marka dambe oranaya adu waxa la lacag xakeed ka keentay kuuskan yar baan iibiyaa daroogada xashiishada aadna soo iibi waxana lacagna halkaas laga helayaa dawaaya idib uu ka shooyba groupkii maafiyadaha uu ku beeray walaadkiina saaxiib xun baa helayo isagoo halkan fadhiyo kitaabka akhriyay ama khudbada ayuu booranaya war kursi baa la fuulaha tan weyn baad noqoto masaajidka ee dhex fadhi kari meeside bal kale aad yar ruqaansatide yanu dib baa aragnayba khudbadii kitaabkiiba uu toortay war mushkiladeenu waa saaxiib xun aday waay waxigu sidoo uga digayno marka yar dul marayna saaxiibka xun waxigu wuxuu sheegay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay dabna lama soo dhaweysto الجليس الصالح والجليس السوء النبي كدغ ayuu kala qaaday saaxiib wanaagsan iyo saaxiibka xun muxuu ku sheegay inuu la mid yahay qof dab shidayo kale dhimbeela ka duulaya walaadu nin dhimbeela shidayo oo dab milix lagu shubo dhagacda haya ninka ag fariista maxaad u malayn waaqi waa dambas waa maragubata ka caafariisaad ku jiraysa nin dhimbeela shidaya hadda ag fariisato saaxiibka xun gurigaaga lama keeno nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka waramayay saaxiibka ka digay wala taati baytaka illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqiy riwaayana waxay sheegaysaa wala tashab illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqiy gurigaaga ha keenin qof mu'mina mooyaan raashinkaaga ayuu cunin qof mu'mina mooyaan macnaha waxa weey hala saaxiibino ha soo dhaweyno guriga ha keenin qof liita casuumadahaagana ha ku casuumin qof liita sadaqadii lagama hadlayo wala siin kara cid kasta saaxiibka xuni ummada dhan buu halaagay markuu ilaahay ummad halaagay saaxiibo xun buu sameeyaa suuratul fusilat baynu gaar insha Allah wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum haqqa alayhim alqawl ummada saaxiibo xun baan u diyaarinay ummadaha arkaysan la halaagay waxa laga raacay saaxiibo xun buu ilaahay subhanahu wa ta'ala saaxiibka xuni diintaadu kharibaa dad in iska diin wanaagsan tahay oo khayr leh nabigu wuxuu xusay inuu diinta ka kharibi karo almaru ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhali qofku diinta saaxiibkii uu haysta war qof walowba iska fiiri kaad la saaxiibayso si aanu diinta kaaga kharibin saaxiibku khaatumada ku seejiya waxa ku haray bad saaxiibka xunay khaatumada karkaarka uu ku weydaarinaya oo fiirsan nabi maxamed adeerkii abu talib shahaadada uu laqimaya abi jahlna dhagtaasu kaga hayaa wuxuu leeyahay nacasoobi nin waxa lahay geesiya hadii maanta aad halka ka baydho diintii abdul muttalib khilaafto inantaada dib loo guursan maayo
ورماشة حرقة كقطك سيدن كيف وحكو استاريا فريق بيالته وعارفوا لها النقاني بوري يسحج نبي يمور دقيسانين يروحون تشاقيا وأغاية أبي جهل بور دقيسو خراري كركارك ويداري هذا صاحب وناكسن هدوك صاق فريستنا خاتمة الله وكوافة تنكرا إن كي نبي الله صاحبك هاي يهودي هاي أو أذيقي مركو سيد من النبي قو صاق فريستا وحولي الشهادة الكيب كو أشهاد أو كو إسلام النبي كل ورقة عليه الصلاة والسلام كو آس هذه هنا كغهرة صاحبك حمين شفاعتك سيتشيا وناكسن صاحب هذا وناكسن هو يسوي شفاعة قاضي صاحب حمل لكن كوب الشفاعة قاضي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ذلك التقوى ذا الأمبا مالين تأسوا الشفاعة قاضية فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ما أنت وحنو إرقية ما هيستنو إرقادة يدي وحا خريبة صاحب حنبانو الهي ساكت صاحب حمي جنادو كسيتشياه إله جنادها نسيتشين عذاب كوكوه قامية سورة الفرقان آيات كأخريس ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وأن عبني علي وحليه كنت رضى إذا ما النبي محمد راعم محا صاحب كيف حمايقي وكا قرآن كي ويداري وما انت هلكا سوي لقد صاحبك حمي وحاسو أيان درها أبو ليه وحاسو أيان درها ونبي كدقي عليه الصلاة والسلام القرآن كدقي قصدا waxa ku jirta aayad kan horeeyay dhageysanayna ahlu jannah sheekaysanaya waqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun wa farahsan yihiino jannada ku sheekaysanayaano waayaha dunyada la iska wareysanay allahumma ij'alna min haula qala qaa'ilun minhum inni kana li qarin idbahad la wuxuu warniya waxa adduunkii jiray midaan saaxiibahay yaqulu innaka lamid almusaddiqin wuxuu oran jiray intuu dhaliilo warma ku shahaadadahay dadka aakhira iyo waxa rumaysan baadahay dadka aan noqonin aakhira cidina in soo saari mayse bal imika aan eegna uu leeyahay naartu galay fatala'a faraahu fi sawaa'il jahim saasu eegada wuxuu arkay saaxiibkiisiyo naarta xagga hoose ka geeraaraya markaas dabeetana ilaahay ku mahadnaqaya ilaahay ka reebay subhanahu wa ta'ala waxaynu leenahay saaxiibka sunaysan silaa ku xambaarsan hal iska ilaaliyo digniinteenu waa taaway inta soo daliilayno akhrino quraan iyo xadiis balihi saaxiibkaasi ka digaya dad oo dhan waxa kala kiciye saaxiib wanaagsan haduu qofku soo dhageysto adduunyadana uu soo dhaweysto adduunyadana uu ka horumaraya akhirana uu ka horumaraya hadii kala labadaba uu sheegay waliba maatida iyo caruurta iyo dumarka loo xula saaxiib daayirtiya siiba caruurta yareed marka ay marxaladda muraahiqa ama teenage-ka la yiraahdo saaxiib laadaan dad tilawaan saaxiib tiraya saaxiib laan maayo laakiin mid wanaagsan u raadi masaajid ka geeya aqoon fiican la raajiciya tartanka khayr kale uu kaga daydo arintaa inaynu aad ugu baraarugsanaano oo caruurtaada aanad ka war la'aanin saaxiibadooda wax weyn weey وهذا ما أقوله وأستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته